السلام عليكم صاحب يا الجمعة وناكسن كسو دوادا جنال كيني النخاي ميدي يوتيوب اي فيسبوك بيج oo aad uga barateen inuu idin soo gudbiyo warar sports iyo wararka caalamka oo xaqiiqda ku saleysan balse maanta waynu ka nasanaynaa sportiska oo waxaan idin wadaa sheeko ka dhacday dalkaasi Congo oo bariyahan qabsatay social media waxba yaan hadalka in ku daalin aan u guda galna sheekadeena hana hilmaamina like share subscribe iyo waliba commentiska marwa ayaa ogaatay in ninkeeda uusan lahayn wax luga ah arooskeedii kadib sheekadan ayaa laga sheegay nin ku guuleystay inuu naafnimadiisa ka qariyo gabadha uu guursaday isla markaana hubsaday in aanay waxba aysan ka ogeyn naafnimadiisa ilaa ay ka dhacday xafladda arooskooda ee dalkaasi Congo ninkan oo magaciisa lagu sheegay Nadiyasenga Jean de Dio kuna magac dheer Jado iyo gacalisidiisa Borah Mutateri ayaa la sheegay in ay wada socdeen muddo dheer ka hor inta aysan aakhirkii isguursan Jado iyo gacalisidiisa ayaa intii ay hasaabaha ku jireen waxaa la sheegay in uu ka qariyay in uusan wax luga ah lahayn Bora sababtoo ah wuxuu ka baqayay in ay guurkiisa diido talaabadan ayaa la fahansan yahay inay sabab u tahay waaye aragnimadiisii hore ee uu kala soo kulmay haween kuwaasoo ugu dambeyntii ka diideen guur curyaannimadiisa awgeed Jado ayaa la sheegay in markii uu yaraa uu lugaha ku waayay qarax bambaana iyagoo ka qaxayo dagaalo ka jira dalkiisa Congo kadibna uu galay koomo 2 bilood ah markii uu miirkiisa u soo noqdayna arkay labadiis lugood oo la gooyay wuxuu Bora kula kulmay tartan heeseed lamaanahan ayaa isweedaarsaday nambaro taleefan intii kulanka uu socday oo ay isjeclaadeen kadib Bora si kastaba ha ahaatee wax fikrad ah kama haysan in jaceylkeeda aanu lugu lahayn sababtoo ah Jooda wuxuu had iyo jeer xiran jiray oo ku soconayay luga macmal ah video baraha bulshada ku faafay ayaa haweeneyda ku sheegtay in ay u maleynaysay in uu jaban yahay oo uu dhuftinayo laakiin meherkeeda kadib waxay ogaatay xaqiiqda muuqaalkan ayay Bora ku sheegtay in ay ka caroonin ninkeeda kadib markii uu u sharaxay sababta ka dambaysa falka uu ku kacay qoyska marwada ayaa la sheegay in ay ka soo horjeesteen guurka sababo la xiriira naafnimadiisa laakiin ka soo horjeedsashada qoyska Bora maysan ku raacin reerkooda sheekada jaceylkooda waxay kasbatay in ay dhowr qof ku amaanaan baraha bulshada saaxiibayaal sheekadii intaas ayaa nooga eg tahay waan ku mahadsantiin sida wacan ee aad ula socoteen waxa kale oo idinka rabaa inaad commentiska ku soo qortaan sida aad u aragteen sheekadan